يا أمتي بالحق قومي واصدعي ولرايات التوحيد فخرا فارفعي وتوثبي نحو العلا ببسالات وعلى ذور المجد الرفيع تربعي وتحرري من قيد ظلم جائر لا تستكيني للهوان وتخنعي فمعالم الإسلام بان سبيلها للعالمين فأدركيه واتبعي وتلمسي هدي النبي وصحبه وبكل ما قد صح عنه تطبعي فالله أنزل ذكره لرسوله يهدي الآنام بنوره المتشعشع هو للفلاح دليلنا وإمامنا قد ضل من بخلاف هذا يدعي شد العزائم تحت ظل لوائه وبغير نيل المبتغى لا تقنعي وخذي بأسباب النور تقدما ولذلك الماضي التليد تطلعي عودي إلى مجد تقادم عهده. halkani waa sidii muuqata waa warbiyo sa garada sidii iyo taawad oo sameeyay DPI badan waa gas yaha sameeyay iyo qaama وتمزعي وتكالبوا من كل فج أقبلوا يبغون منك لحكمهم أن تخضعي فلما الخنوع لغادر مستكبر أوليس آن لشرهم أن halkan waa degmada taariikhiga ah ayl maantay waa u jeedaan in halkan waa ku dalxiisana biyaha iyo khayraadka ilaahay ku manaystay bilicda iyo waa aragtaan in waxa ka buuxa kalluunka oo leh jaadad kala duwan iyo nooc kasta oo fara badan leh waxa aad doontaan halkan intaan daawanaysaaniin dhamaan asxaabta dalxiisaysa iyaguna halkan ku yimi oo ka mid yahay macallin sayid baashaarna badeeni khayraadka badnayd insha Allah waxa waayaan waa galab jamca oo askaga dalxiisina dhulkeena hooyo ayaan joognaa bismillaahir rahmaanir rahiim galabtii waxaan joognaa badii ayl badweynta Hindiya ee magaalada ayl waxaan joognaa xeebta baday waxa halka igala sugan dad qiimo iyo qadarin xagga kule macallin sayid ajmaal diida iyo maxaa musal oo loonaana samsan faraxa waxaan dadka ka maqan mutaqaana oo ka tagay inaa u soo noqotaan oo magaalada dalxiiskeedii marka insha Allah waxaan iga suugaysaanin fiyo kale ma karaa kulana hadii ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay aslaam iyo dhamaantiin ma soo jeedaan